ولذلك النبي وحده المامي عليه الصلاة والسلام كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه نبادتك وحدي من شري dabeetana wiilka shaqaalaha buu wuxuu ku oran jiray hadduu ku yimaado qof mucsiri qof deyntii iyo xoolihii uu qaatay ku adagtay inuu iska bixiyo tajaawaz anhu iska dhaaf buu oran jiray la'alla allah an yatajaawaz anna hal arka ilaahay hadaynu adoomiisa uu cafino kii waxba waayeen ilaahay inagana ina cafiye ciidad waxba ka weyday iska cafi nabigu wuxuu yiri markaasi falaqiya allah fatajaawaz anhu إلهي بقول لك كل ما إلهي سند ذنوبتي سوى وضعف ما دام ودتك مركا عيدوبان ما كعانا ما خساران وفوتين شري وكقلين شري السجن والله فوتيو ولا قلي ومركا سيدنا بيجي رب عرف يا سبحانه وتعالى سأو قد بين لنا تاجر كمسلم كاي وين ذو خلق نقضه قف ماشة خيامة كترت لكن ولا تخن من خانك أيام ماشة الله أدوغونا خيامة هبلابين سادرات بالنبي وحو تلمامية رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى إلهي هو نحرسته أدون متسامحة مركو وحيبين أيوه تاتكاو دمرية هدو وحيب سنة يانا قرقرتا كان داتك نفتي سوكينين dadka barba soo gorgortamayo qofku marka dambe isla warkan iska diruuno ka qaat adaa nafta isugu keenay intan muusiinaynin laakiin marka gorgortanka ku badisay nabigu wuxuu leeyahay qofka markuu wax gadanayo markuu wax gadayaba qof dabacsana hadii uu deyn cid ka doonayo iyo haduu cid siinayabana uu yahay samax kaasi ilaahay u naxariisto nabi maxamed waa ducaynaya alayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay marka taxaddiga عباداتك إنه قفكو أنا تجارتك كحينين تحدي أخلاقيتك إسلامية أديكو أقدتك لبع مشترين سيني خيامة وضان أما يبين شيء جيان أما يعني كانوا نقيان أديكو سكتشرين لو خيامين لكن أديكو صادق نقو أديكو نقان كي قفك مسلم كاهي هكام مقدسيد النبي شيء عليه الصلاة والسلام سيدا وقيت باوحا وحديث كالترمذي ابن ماجه والباني الصحيح وكتل المامي وحنبي قولي بقيع وحلك ميل وحلك ليبسن يو النبي ويمي مركاسو يدي يا معشر التجار والغلط إنه وحكى لقضانا يسايبا ليدي نبي حقي سيبي وسوتشيستن عليه الصلاة والسلام رفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه لنكي يسال صوضة شلاعي مركاسو يدي إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق تجارته باع مشتركه maalinta qiyaame waxa la soo saaray iyagoo fujaara faajiriina mujrimiin dambiilayaal bay ku soo baxaan aakhira buu nabigu yiri yaa laga reebay kuwii ilaahay ka cabsaday ee xalaashiya xaraanta kala soocay ee ilaahay dhikrigiisa ku nabna wabar dadka u samafalay ee fiicna wa sadaq waxay tijaarada ka run sheegayay groupkaasi waa kuwa guulaysanaya iyagoo way ka soo hadhayaan أما تجارته أنت كلا وحنا بقول المام ينين محي إن فجاريهين فهل لنا وحنا نبغى ينات المام يا لعكت أورورين تيدو إن بحين تيدو نلا صعطة شحي أتكبحضه وأنا إلهي الذكر جسنا كامشغول سين الشاقني نبغى حلي يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف وارتجاري وحقاد الشضة لغو تربضا إيا الناربا سوق الشيء واربا الصدقة كما يدبال ليه صدقة فشوبوه بالصدقة إن سوق يضا إيما لها السنة وما لدبضا ونبغى عليه الصلاة والسلام وحكوت المامي أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها حديث كمسلم نبي يقول حليه دولك إلهي وحوش عليها هي محي مساجده دولك ما لها اللي قلنا عبيها هنا وحاوي ينبالي للصغيرة وحلقوك لقاطه ويا والله بينا يا الدار يا خيامه يا أمانة الدر يا وحاصر من وحيا اللي محي صغيرة سيدا أوجد أي النبي عليه الصلاة والسلام إن بدن كدقية
laba dhanba waa looga digay inay ghafla kugu dhacdo bal xadiidkan u fiirso wuxuu nabigu yidhi ninka markuu suuqa galayo yidhaahda xadiidkii ibnu maaja albaani xasan ku sheegayay ninka markuu suuqa galaya yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd yuxyi wayumiitu wahuwa xayun laa yamuut biyadihi alkhayr kulluh wahuwa calaa kulli shayin qadiir intaa weedhaa ninka yidhaahda markuu suuqa galayo kataba allahu lahu alfa xasana wamaxaa canhu alfa sayi'a wabanaa lahu beytan fi ljanna kun waa imisa waa milyan dee af carabigii hore milyan waxa la yidhaha kuma jirin alf weeyaan kun lagu dhuftay dee waa 1 milyan waa 6 zero saxanka maaha wuxuu nabigu leeyahay ninka markuu suuqa galayo maalintii ee tijaarada uu ku sii socdo intan akhriyaa 1 milyan oo ajara waa loo qorayaa 1 milyan oo sayi'ana waa laga rogayaa gurina jannada looga dhisayaa culimadu waxay yidhaahdaan mawطinkan baa mawطin alghafla oo inta badan dadku lacagta iyo dukaanka iyo xisaabada iyo rasaqiya fataaxda ay xasuustaane dikriga ma xasuustaan bay yidhaahdaan yacni waa mawdicaan qofku inta badan waxay yidhahdaan cibaadaadku amaakin alghafla iyo awqaati alghafla iyo kuwaasi cibaadaadku ajarkooda wuu xoogaysmaa waayo qofkana waxay tilmaamaysaa qof ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala inuu yahay markaa qofka markuu suuqa galaya sida tan yidhaahdaa milyan xasanadood na waa loo qorayaa milyan sayi-ana waa laga rogayaa guri janneedna waa loo dhisayaa buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa meeshaasi dhibaatada badani ka jirto qofku hadduu ilaahay ku xuso inuu yahay qof ilaahay ku xidhan dhanka kalena salmaan alfarisi isagoo mawquufa buu imaamu muslim ka soo wariyey culamada qaarna waaba rafciyaan ayaa wuxuu leeyahy laa takuunanna in istataact awala man yadkhulu suuq haddaad awooddo ha noqonin ka u horreeyee suuqa gala walaa aakhira man yakhruju minha iyo ka u dambeeye ka soo baxa fa innahaa macrakatu shayطaan wa bihaa yansibu raayatah waa goob dagaal shaydaan weeyaan imaamu nawowi waa wuxuu leeyahay waa macrakatu shayطaan waxa loo yidhi likahrati maa yaqacu fiiha min anwaaci اlbaطili كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجس والبيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والصوم على صومه وبخس المكيال والميزان وحاصر ما كان عبولي سيدا درادد أي الله قلت المامين يتهيبون معركة الشيطان يماشى وعلنك الشيطان كتاكته هذا بقى وهي علماته إلى هذا ka u horreeya ka u dambeeya waxaa looga dan leeyay bay yidhaahdaan haddaad u horraysana hore uga soo baxa haddaad mar damba gashaa laakiin ha noqonin marka horena ka u horgala dadka hadhowna ka u dambeeya noqda kaa ha noqonin bay leeyihin dee meeshii la yidhi mashkaakilkaa yaalla haddaad adigu bilow ilaa dhammaad taagnaato miyaad belebeelaysaa markaa haddaad furtana aakhirka marka suuqa la xidhaya inaad ka soo baxdo way dhib badan tahay saa awgeed baa waxaa lagu tilmaamayaa inaad saa noqonin idan waxaynu leenahay wakhtigan aynu hadda joogno furas tiro badan baa jira furaskaasi ama macluumaadka ku saabsanaadaan ama muwaasalaadka ku saabsanaadaan ama itisaalaadka ku saabsanaadaan ama taxwiilaadka waa furas yaalla furaska yaalla waxaa kaloo ka mida baynu leenahay التجارة مع الله قبل التجارة مع البشر inaad ilaahay la baayac mushtarayso inta aanad bini aadamka la baayac mushtaraynin bini aadamka meelaha uu u jilicsan yahay qalbigiisa lagu hanto hantida ka mid ah walidaalika nabigu wuxuu tilmaamaya tahaadu taxaabu waxisu hadiyeeya waa maxay waa isjeclaanaysaan baa yidhaahdaa qof hadduu kuu samafalo dee qofka laba goor ku seeriyeeye maalinta dambe waxaad odhanaysa wallahi ninkaa nin ragga ka fiicani ma jiro agtaada miyaa lagu soo qaadayaaba ninkaa yacni bini aadamku hantida wuu jilicsan yahay sidaa awgeed ayay tujaartii muslimiintii hore waxay ahaayeen dad ducaat oo fursadda tijaarada ay heleen diintooda uga faa'iideynaya lababa way kaga faa'iideynayeen kuwooda culammada ahi dee dadka inay wax u sheegaan laakiin waxaa ka muhiimsan dhaqanka qofka markaad khiyaamayn weydo markaad aamin noqoto wixiisa u ilaaliso
markaad run u sheegto si aanu u kadsoomin qararka aad ka ilaaliso marka aad samax noqoto daynta ku lahaato ama daynta ka cafido ama lacagta u dhiibto qalabka u dhiibto tiraahdo soo cadayo hadhow ka ixsaanka tirada badan leh wuxuu keenayaa dadku inaad dad badan diinta soo gelisaan dadku inay diinta jeclaadaan laakiin taajirka muslimka hadduu dhiig miirata noqdo dadka gobooda u dambeeya caba taladiisuna ay tahay un dadka wixii jeebkooda ku jira inuu qaato jeebka mooyaane qalbiga dadka ba arkaynin dee waa mid subxaana leh inaad jeebka waxa ku jirana aragto dadkan quluubtooda iyo dunuubtooda iyo alla ka fogaantoodana uu kuuma muuqan weydo waa waxaan fiicnayn tujaartii hore muslimiinta ahayd dhaqankooda xalaal miiradkooda akhlaaqdooda cibaadadooda waxa aynu nidhi waa taxadiga ayay ka run sheegeen dabeetana waddanno dhan baa ku islaamay saa in badan maqashaan waddannadan maleesiya indoneesiya dadkan indha yartee malayga la yidhaahdo indiya qaybo badan oo ka mid a dee jihaad cidina kuma xoraysan waxaa tegay un dadkaa tujaarta ee wax iibinaya waxgadaya baac mushtarka ahaa laakiin waxay noqdeen baac mushtar muslim oo maxay xambaarsan risaale xambaarsan maanta muslimiinta tujaartoodu dunidoo dhan waa marayaan dunida halka u dambaysa ilaa halka u horaysa laakiin raadka aynu leenahay wuu yaryahay waayo hamigaasaynan sidinba marka horeba xil diimineed inaynu xambaarsannahay ayaynan ogeyn inaynu safiir nebi maxamed ka nahay calayhi salaatu wasalaam ayaan inoo dhacsanayn haddaba waxaynu leenahay taajirka muslimka ahi waa qof caqiide xambaarsan oo dadka ugu yeedhaya taajirka muslimka ahi waa saaxibu khuluq waa qof akhlaaq islaamiya sida oo dadka ugu yeedhaya oo ammaanadu ka mid taho runtu ka mid tahay oo waxaasoo dhan khiyaamo la-aantu ka mid tahay taajirka muslimkii waa daaci dhaqankiisa iyo xusnu suluukihii uu dadka diinta ugu yeedhayo xataa haddaanu afka nin cilmi la ahayn lisaanulxaalkiisa dhaqankiisaa dadka diinta ugu yeedhaya dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya man khashana falaysa mina ninkana khiyaameeya nagama tirsana idan waxaan leenahay taajirka muslimkii ma aha inuu iibiyo alaab dhacday ma aha inuu iibiyo alaab uu been abuuray oo yidhaahdo ingiriiskaa lagu soo sameeyey daawada tan intuu meelo heer ku soo miiso oo meel kale ka keeno ma aha taajirka muslimkii inuu miisaanka khiyaameeyo mikyaalka tujaar waaweyn baan maqlayay oo la yidhi 10 kun oo tan buu dalbanayaa halkii 50 kiilo lagu shubi jiray buu odhanaya 49 ama 49.5 ku shub dee malaayiin min alkiilooyaad baa uga soo baxaya ilaan waxaan ugadaya wax tira badan dadkuna jawaanka intay qaadaan saari maayaan miisaanku eegi maayaan inuu 50 kiilo iyo ama 25 kiilo inuu yahay haddii jawaan walba waxoogaa laga tuuro ama kuwan dawada keena haddaad dawadii 10 garaam la rabay inay ku jirtaba aad 5 garaam ku gurto 5 ka tuurto dushana 10 kaga soo qorto inay 10 garaam oo antibiyootiga noocaasi uu ku jiro waxaasoo dhami waa talaacub walaa tabkhasu nnaasa ashyaahum tibay soo hoosgelayaan awfu lkayla walmiisaanki weylun lilmutafifiin kaad hoosgelaysaa kuwii ilaahay lahaa weylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin hog wuxuu u sugnaaday baa ilahay yidhi kuwa wax khafiifiya miyaanay kuwaasi u malaynayn baa ilaahay leeyay maalin weyn inay rabbigood is hortaagi doonaan ama badaaca radii'ah badaaca liidata inaad ku iibiso calaama tijaariya kaloo aanay lahayn oo dadku wax ku iibsado jayida ama mawaadda bini aadamka caafimaadkooda waxyeelaysa ama dhibta u geysanaysa inaad iibiso ama waxyaabo najaasaad iyo qurun lagu soo daray inaad iibiso waxaasoo dhammi waa anwaac qish ka mid a waxaasoo dhan ma soo koobi karno laakiin waxaynu leenahay qofka muslimka ahi waa qof makaarimul akhlaaq dhammaanteed leh oo qofka naadimka ah qofka tijaarada ka xumaato hadduu yidhaha kontaraaga iga jebi ka jebin kara hadduu u baahan yahay kaalmayn kara walaalkiisa kale taajirka aan kicinaynin ama xaasidaynin inta badan tijaaradu waa xasad midhan oo dadka tujaarta alla isma tuso badeeca ku eriya kan ku eriya waxaasina diin maaha dadka muslimiinta inay isu daceeyaan oo wada wanaagsanaadaan furaska idinkaa iga badiya marka
laakiin anigu maxaadiirtaan idiin badiyey qoladiina tujaarta ee baac mushtar ku jirta suuqa iyo furaska yaalla wax badan cidi idinka warrami maysaan u malaynaya idinkaa yaqaana laakiin warkan oo dhammi wuxuu ku soo koobmayaa haddaad laba hal isla hesho wax waad saxan kartaa haddaad aqoon waxaa waa wax yar aqoonta koors yaroo 3 cashaad qaadatabaad inta aad u baahantahay hore kaga dhammaanaysaa wixii ka dambeeyana nin caalimo muslimo umaad weydiinaysaa tujaartoo dhammi soo looyar ma leh taajiraan looyar lahayn miyaynu leenahay tujaarta waaweyn inta badan nin waliba looyar buu leeyahay kontragyada ka eega oo u saxeexa oo u diro oo waxa kanu sameeya si aan qaanuunka loogu qaldin dee faqiihna lahaw kuwa eega waxa kan inuu xalaal yahay iyo inuu xaaraan yahay sharciga gaalkaba waad u eegaysaa maxaad ka muslimka ugu eegi weyday ilaa looyarkani sharci gaaleedku ku eegayaa inay waxaan waafaqsan yihiin kale ka muslimkiina wuxuu ku eegayaa ka islaamka inay waafaqsantahay kale marka waxaan leenahay haddaad laba hal oo qura hesho waxaan sheegay oo dhan waa challenges aad ka talaabi karto insha Allah taala ka koowaad waa aqoon inaad baaciyo shiraaga iyo ahkaam